بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijka aan idin kugu haynana waxa kamida FBI-da Mareykanka oo shaacisay inay ka hortagtay weerar qaraxyo ah oo 5 meelood oo kala duwan oo gudaha Mareykanka laga fulin lahaa isla markaasna gacanta lagu dhigay 5 qof oo la xiriirinayo weeraradan مسؤولية كترسان مامول كترام أو سبان أولاريلي نتياهو يجو كسفيي نين جودون عالم ككجرا حق حساسية أو أرمهاني كؤدن أيان ذيهنا أو عاو أي باهسي ورباهن تمريكان كيتن إسرائيل فافاهن عصب أي كسو بحيسة كورنيل كترسنا سراكيشا أمانك قزاء الدري يدو اللقبتي عناصر لغوته سيهي in Israa'iil ay la shaqeynayeen oo dilkan ay ka dambeeyeen sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa waa xaalad adag oo daryeel xumo ah dayac iyo dhibaatooyin kale oo haysta dadka Gaza iyadoo boqolaal teendooyin ah roobku ay qaadeen maxkamadda ICC oo gaashaanka u darurtay dacwad dood ah oo Israa'iil ay soo gudbisay taasi oo ay kaga soo horjeeday amarka soo qabashada Netanyahu horumar laga sameeyay wadahadalada nabadda ee Ukraine iyadoo Zelensky oo dalbanayo damaanad qaad amni oo la siiyay Ukraine sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay waxaa laga yaabaa inaad ka cabato qabow isla markaasna aad tiraahdaa goobtan aad joogtaa qaboobaha laakiin ka waran magaalada adduunka ugu qabow haddii wax walba ay kala socdaan ganacsigii iskooladii wadooyinkii iyo shaqooyinkiina si caadi ay u socdaan imisaad u malaynaysaa darajo qabowga uu jooga qaybta dambe ee barnaamijka ayaan idinkugu faahfaahin doonaa dhammaan wararkan iyo weliba wixii warah ee soo kordha ayaan caawa idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa waddankaasi Mareykanka oo la soo warinayo in laga hortagay weerar qaraxyo ah oo laga fulin lahaa dalkaasi haddaba wararkii ugu dambeeyay ee amurahani la xiriira hay-adda dambibaarista federaalka ee Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo FBI ayaa shaacisay caawa inay ka hortagtay wax ay ku tilmaamtay qatar argagixiso oo degdeg ah iyadoo xirtay 4 qof oo ku sugnaa magaalada Los Angeles iyo qof shanaad oo lagu qabtay New Orleans kaas oo la rumaysan yahay in uu xiriir la leeyahay isla shabakadaasi FBI-da ayaa xustay in dadka la qabtay ay qorsheynayeen inay ka fuliyaan qaraxyo isku mar ah 5 goobood oo ku yaal magaalada Los Angeles xeer ilaaliyaha Mareykanka Bambodai ayaa ku dhawaaqday in FBI-du ay fashilisay qorshe qaraxyo ah oo ay ku jireen bartilmaameedyada lagu beegsan lahaa gaadiidka socdaalka iyo kuwa fulinta qaanuunka ee ku sugan Los Angeles iyo deegaanka Orange ee gobolka California arrintan waxay imaanaysaa xilli booliiska Rhode Island iyagoo kaashanaya hay'adaha federaalka ay si wadaan baadi goobka eedeysanaha fuliyay weerar hubaysan oo ka dhacay jaamacadda Brown Sabtidii weerarkaasi oo sababay dhimashada 2 qof iyo dhaawaca ku dhawaad 10 qof oo kale wahagaag FBI-du kamaysan hadlin haybta dadkan iyo weliba cidda ay ka tirsan yihiin iyo ujeedadooda goobahaasi ay u weerari lahaayeen wixii waraha ee ku soo kordha arrintan intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo wahagaag waxa inagu soo fool leh warbixinta ku saabsan Mareykanka mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Trump oo Netanyahu eedeyn u jeediyey intaan u gudbin wararkaas laakiin markan waxaynu eegaynaa dagaalka Ukraine wararka la xiriira wadahadallo u dhaxeeya wafuudka kala socota Ukraine iyo Mareykanka ayaa ka dhacay caasimadda Jarmalka ee Berlin iyadoo la soo gabagabeeyay wareegii labaad
kulamadan ayaa ujeedadu waxa ay tahay in xal nabadeed loo helo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Tani waxay ku soo beegmaysaa xilli Moscow ay mar kale ku adkaysatay in Ukraine aysan ku biiri doonin isbahaysiga NATO, taas oo ay ku tilmaamtay shardi aasaasi u ah nabad la gaaro. Shabakadda wararka Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa soo xigtay mas'uul Amerikaan ah oo sheegaya in kulanka u dhaxeeyay la taliyaasha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu ahaa mid mardhal ah. Kadib wadahadallada, Zelensky ayaa sheegay in dalkiisu uu doonayo heshiisyo aysan Ruushku jabin karin, isagoo carabka ku adkeeyey in helidda damaanad qaadiye amni ay tahay arrin lama huraan ah, isagoo ku eedeeyey madaxweynaha Ruushka in weerarada Ukraine uu adeegsanayo sida gorgortan oo kale. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidoo kale soo xigatay madaxa wafdiga Ukraine ee wadaxaajoodka, kaas oo sheegay in wadahadallada Washington ay ahaayeen kuwo wax ku ool ah, isla markaasna ay horseedeen horumar dhab ah. Wuxuu rajo ka muujiyey in heshiis nabadeed la gaari karo dhammaadka maanta, waxaana wakaaladda wararka Ukraine ay sheegtay in wadahadalladu ay sii socon doonaan inta la sheegayo suurtagalnimada in la gaaro hanaan nabadeeda. waxaana la sheegayaa in wadahadalladan ay sii socon doonaan sidoo kale inta uu ku sugan yahay Zelensky magaalada Berlin. Geesta kale, wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay in maamulka Trump uu qorsheynayo in heshiis damaanad qaadiye amniyaha la siiyo Ukraine, kaas oo lagu wado in loo gudbiyo golaha sanadka ee Mareykanka si loo ansixiyo. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa iyana waxay soo xigatay ilo xogaalaha oo sheegaya in Mareykanku uu doonayo in Ukraine ay ka tanaasusho gobollada la isku yiraahdo Donbas oo ka kooban Donetsk iyo Luhansk si wadahadallada nabadda horumar looga gaaro. Arrinkan laakiin waxa la sheegayaa Ukraine inay ka biyadiidsan tahay. Geesta kale, aqalka Kremlin-ka ee looga arrimiyo Ruushka ayaa mar kale ku celiyey in ka mid noqoshada Ukraine ee NATO ay tahay qad cas oo aan laga gudbi karin, isagoo ku adkaystay in Ukraine ay noqoto dal dhexdhexaad ah. Wadahadallada Berlin ayaa imaanaya xilli dagaalkan bilowday bishii February 2022 uu socdo, isla markaasna ay ku geeriyoodeen dad aad u fara badan. waxaana dagaalkan la sheegayaa in khasaarihiisi uu sii kordhayo, waxaana soo kordhaysa baaqiyada lagu dalbanayo xal nabadeed oo degdeg ah. waa tahay haddaba arrintu waxay u muuqataa in Ukraine ay ogolaatay horta marka ugu horeysa qodob ka mid ah qodobadii la isku hayay oo ah inay ka harto damaceeda ku aadan inay ku biirta NATO. laakiin arrinta gobolka Donbas ayaa weli la isku dhegan yahay. wixii ku soo kordha waynu arki doonaa. waxaan u gudbaynaa faahfaahin ka soo baxaysa korneel lagu dilay marayka Gaza. waxaan kaloo idiin haynaa warbixin la xiriirta maxkamadda ICC oo gaashaanka u darurtay dalab Israel ka yimid oo weliba dacwad ahaa in la joojiyo dacwadda ka dhanka Netanyahu ee dembiga dagaalka. waxaa kaloo inoo soo socota warbixinta ku saabsan mas'uuliyadda maamulka Trump oo Netanyahu eedeyn u jeediyey. maxay tahay sababtu? waan idiin faahfaahin doonaa. wararka iyagii ugu dambeeyey 72 saac la soo dhaafay waxaan idiin soo gudbinay xaalad adag oo ka taagan marayka Gaza. dabaylo, duufaano, darxumo, dayac, amni xumo, duqeymaha Israa'iil, intaas oo idil ayaa haysta dadka reer Gaza. laakiin saacadihii la soo dhaafay xaaladdu ay ka sii dartay. boqolaal teendooyina ayaa waxaa qaaday daadadka. muuqaalkan aan idin tusno la duubay gordhaweyta oo galabta ah, kaasi oo la xiriira iyadoo daadadkan si xooggan looga dareemayo in teendooyinka ay qaadeen, welibana dabayshu ay muuqato. xaaladahan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay sababeen cimilada oo aad u xumaanaysa. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka ee IOM ayaa sheegtay in 100,000 oo barakacayaal halis ay ugu jiraan fatahaad, halka wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay xaqiijisay dhimashada ilmo yar oo u dhintay qabow daran. xafiiska warbaahinta Gaza ayaa sheegay in 12 qof
ay dhinteen isla markaasna la la'yahay qaar ka mid ah kadib 13 dhismo oo dumay ilaa 27 kun oo teendooyin ah ayaa la sheegayaa fatahaadahan in ay burburiyeen. arrintan waxay imaanaysaa iyadoo Israa'iil docda kale ay sii wado duqeymaha xagga cirka madaafiicda ka geysanaysa Mareykanka qasameelo kala duwan oo ka mid ah taasi oo lagu sifeeyay xadgudub ka dhan ah heshiiska xabad joojinta. isla wararka Gaza, wasaaradda arrimaha gudaha ee Mareykanka Gaza ayaa telefishinka Al Jazeera u sheegtay in faahfaahin ku saabsan ay soo baxayso baaritaanada la xiriira dilka gaashaanla dhexe Axmed Zamzam oo ay toogteen rag hubaysan maalinimadii shalay. sida ay sheegeen ilawareedka, Zamzam wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan hay'adda amniga gudaha wuxuuna qabtay hawlo kala duwan intii lagu jiray duulaanka Israa'iil ee Mareykanka Gaza, gaar ahaan dabagalka iyo bacsiga jaajuusiinta. ilawareedkan ayaa xaqiijiyey in xog badan laga helay dilka kadib markii la qabtay lana waraystay qof jaajuus ah kaas oo shaaca ka qaaday in sirdoonka Israa'iil ay u xilsaareen jaajuusidda iyo la socodka dhaqdhaqaaqyada Zamzam. ilawareedka ayaa Al Jazeera u sheegay in kaamirad laga helay jaajuuska la qabtay taasi oo duubtay dilkii Zamzam isla markaasna si toos ah ugu gudbinaysay sirdoonka Israa'iil. wuxuu sheegay in baaritaanadu weli ay socdaan isla markaasna hay'adaha amnigu ay sii wadaan bacsiga jawaasiis kale oo ka qayb qaatay dilka. wasaaradda arrimaha gudaha ee Gaza ayaa shalay ku dhawaaqday in Zamzam la dilay subaxnimadii Axadda kadib markii lagu toogtay xerada Maqaanzi ee bartamaha jiida Gaza. war kooban oo ay wasaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay in la qabtay mid ka mid ah dhagarqabayaashii dilka ka dambeeyey isla markaasna baaritaanku uu socdo. madal warbaahineed oo ku xiran amniga muqaawamada ayaa Telegramka ku baahisay qirashada jaajuus la qabtay kaas oo sheegaya in isaga iyo laba kale ka qayb qaateen dilka isla markaasna sirdoonka Israa'iil ay siiyeen hub, baaskiilo koronto ah, qalab duubis ah iyo xog ku saabsan dhaqdhaqaaqa Zamzam. dilka Zamzam ayaa ku soo beegmaya xaalad amni oo ka jirta Mareykanka Gaza halkaasi oo dilalka u dhaxeeya ciidamada Israa'iil iyo faralka gudaha ee lagu weeqay amnigu ay sii socdaan. haddaba arrimahan Israa'iil ka fulinaysa Mareykanka Gaza, Mareykanka ayaa aad uga carooday. war weyn baa soo baxay. aynu eegno warkan. aqalka cad ee waddanka Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inuu warqad u qoray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu taas oo lagu cambaaraynayo dilkii taliye ka tirsan ururka Xamaas oo lagu magacaabi jiray Raid Saad oo Israa'iil Sabtida ku dishay Mareykanka Gaza. shabakadda Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa iyadoo soo xiganaysa mas'uuliyiin Mareykan ah waxay sheegtay in maamulka madaxweyne Donald Trump ay u arkaan dilka hogaamiyaha Xamaas Mr. Saad in uu yahay xadgudub ka dhan ah heshiiska xabad joojinta. isla markaasna waxay sheegeen in Israa'iil aysan wax ogeysiin ama la tashiya kala samayn Washington ka hor dilka sarkaalka Xamaas ka tirsan. axaddii Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in Saad lagu dilay weerar Israa'iil ka fulisay Mareykanka Gaza Sabtidii taasi oo ah baa la yiri xadgudub ka dhan ah heshiiska xabad joojinta ee la gaaray 10 Oktoobar. shabakadda wararka Axios waxay sheegtay in maamulka Mareykanka uu ka niyad jabsan yahay Netanyahu oo lagu eedeeyay dambiyo dagaal oo ka dhacay Mareykanka Gaza isla markaasna ay baadi goobayso maxkamadda caalamiga ah ee ICC iyadoo xogayaha amuuraha dibadda Marco Rubio, ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe Stephen Witkoff iyo Jared Kushner dhammaantood ay dareemayaan niyad jabka weyn ee ku saabsan Netanyahu sida ay sheegayso Axios. shabakadda Axios ayaa waxay ka soo xigtay mas'uuliyiin Ameerikaan ah oo sheegaya in labadii sano ee la soo dhaafay Netanyahu uu noqday qof caalamka ka go'doonsan iyagoo xusay in hogaamiyaasha gobolka aysan ku kalsoonayn Netanyahu isla markaasna ay qabaan diidmo ballaaran ku saabsan wax kasta oo xiriir ah oo lala yeesho. wararkan saxaafadda loo dusiyey ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo 29 bishan December Netanyahu uu kula kulmi doono Mareykanka madaxweyne Donald Trump. dhinaca kale hogaamiyaha mucaaradka ee Israa'iil Yair Lapid ayaa si adag u dhaleeceeyay Netanyahu wuxuuna sheegay inuu ceeb ku yahay Israa'iil iyo dunida oo idil. Lapid ayaa dhalishan jeediyay kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka Israa'iil Amir Ohana maanta uu geeyay gudoomiyaha baarlamaanka Paraguay oo booqanaya Israa'iil ninka lagu magacaabo Raul Latore maxkamadda degmada Tel Aviv si ula kulmo Netanyahu oo wajahaya maxkamad la xiriirta
eedeemo musuq maasuq muuqaalada ayaa waxay muujiyeen Netanyahu oo ku salaamaya gudoomiyaha baarlamaanka Paraguay gudaha maxkamadda Tel Aviv Labid oo arrintan ka falcelinaya ayaa fariin ku qoray baraha bulshada wuxuu ku yiri halkii gudoomiyaha baarlamaanka Paraguay la geyn lahaa deegaanka Nir Oz waa deegaan ka mid ah deegaanada Mareykanka qasa ku dhow oo iska cabinta ay weerartay 7 Oktoobar 2023 waxay geeyeen buu yiri fadhi maxkamadeed taasi waa ceeb waayahay isla wararka Israa'iil intana ka bixin qaybta racfaanka ee maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ICC ayaa diiday dood qaanuun oo Israa'iil ay kaga soo horjeeday sharciyada baaritaanka maxkamadda ku sameynayso dambiyada dagaal ee laga geystay Mareykanka Gaza tan iyo Oktoobar 2023 go'aankan ay soo saareen galabta garsoorayaasha maxkamadda ICC waxay xaqiijiyeen go'aan hore oo ka soo baxay maxkamadda kaasi oo hordhac ahaa sheegayana inaysan jirin xaalad cusub oo qasab ka dhigaysa in xeer ilaalintu ay dib u eegto hanaanka baaritaanka Israa'iil go'aankan ayaa wuxuu xoojinayaa saldhigyada sharci ee amarka lagu soo xirayo Netanyahu ee soo baxay 2024 iyo sidoo kale wasiirkii hore ee gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant kuwaasi oo lagu eedeeyay dambiye dagaal iyo dambiye ka dhan ah aadanaha Israa'iil waxay diiday gabi ahaanba awoodda sharci ee maxkamadda ICC waaga qodobkaasna halkaas aynu kaga gudubno imika waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay aalaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawataan badiya xilligan wadamada galbeedka waxa lagu jira xilligii qaboobaha waxa laga yaabaa in asileedahay qabow baa jira oo laakiin cimiladu ay tahay 2 darajo 3 darajo 4 darajo xitaa ka hoos maraya waxa tiraahdaa -2 iyo ama -3 ama -5 ugu badnaan laakiin caawa waxaan idin haynaa magaalada adduunka ugu qabow waayahay magaaladan waxay ka tirsan tahay Siberia waa waddanka Ruushka imisaad qiyaasaysaa inuu yahay qabowgu waa -45 laakiin arrinta cajiibka waxay tahay basaskii baa shaqaynaya xitaa waad aragtaan maxadada basaska laga raaco iskuuladii baa la aadayaa shaqooyinkii baa socda dukaamadii baa furan gawaarida way socotaa dadka markii la wareystay oo la yiri barka warnama qabowgan daran waxay ku leeyihiin maxaa la yiraahdaa qabow hadda kuleel baa ku jirnaaba waxay ku xiran tahay ku leeyihiin sida aad u labisato iyo dharka aad xirato oo qabowga iskaga ilaalinayso hadda ka waran -45 oo nolosha caadi ay tahay wadamada Yurub marka qaarkood marka la yiraahdo siba Ingiriiska oo kale marka la yiraahdo -10 iyo -8 iyo iskuulada la xiraa tareenada joogsada ganacsiga joogsada laakiin halkan nolosha waa caadi qof kasta hawshiisa buu wataa waxay ku leeyihiin maxaa la yiraahdo qabow -45 ayaa laga hadlayaa laga yaabo inaad gacmaha isku xoqayso oo leedahay qabow baa jira laakiin dadka magaaladan ku dhaqan adkaysigaas ayay leeyihiin baa la yiri waa hagaag oo haddii cirka biyo loo sayriyo baraf buu noqonayaa waata sheekada ayaa ugu dambeysay barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo